daafiyeen dadweyne tiro badan oo ka kala yimid gobolada Somaliland garoonka kubadda cagta magaalada Burco ayaa kumanaan qof waxay isugu yimaadeen sida daawadaan ciyaaraha gobolada Somaliland oo dhexmari doona 8 gobol oo kamid ah gobolada Somaliland ay ka kooban tahay madaxweynaha Somaliland gudoomiyaha golaha wakiilada xubno kamid ah golaha wasiirada xildhibaano siyaasiyiin qaar kamid ah gudoomiyaasha gobolada iyo maayirada dalka iyo ducooyinka dadweynaha ayaa iyaguna ka qayb qaadanayay furitaanka ciyaaraha gobolada Somaliland munaasabad oo loo qabtay furitaanka ciyaaraha kubadda cagta gobolada Somaliland ayaa ugu horeyntii waxaa ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdi Ismaaciil Saylici waxaana uu tilmaamay xukuumadda uu ka tirsan yahay ay diyaar u tahay inay dib u soo nayso kaalintii dhalinyarada ay kaga jireen dalka jooga Somaliland isagoo ka hadlay wadi ciyaarahu waa marka ciyaarta abaadkeeda horumarkooda isdhexgalka bulshada waa afdalkooda xarkuna waxaan ku balani abada xisnaa la dikirino taariikhda wada isdhexgalkooda qarashadooda ciyaarahooda mudaariyadooda wixii kasta suuqan qabano taas waa muujinaysa sanadkii kuwada ku qabano ciyaaraha gobolada hada maanta joognaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Somaliland Cabdi Saciid Faahiye waxa uu sheegay in wasaaraddiisa ku guuleysatay hirgelinta muddo 5 sano iyo kadib ciyaaraha gobolada Somaliland ciyaaraha ku tameysa kula dardaarmay inay si degan oo anshaxaysan kubadda waxaanu yidhi sideeda kooxood oo tartamaya kooxaha kubadda cagta ciyaaraha gobolada Somaliland ayaa waxa uu garoonka soo galay mid kastaba isagoo ku labisan dareeska u gaarka waxaanu salaan ka qaatay ciidamada baanbooda Somaliland furitaanka ciyaaraha gobolada Somaliland ayaa ciyaartii ugu horeysay waxa lagu furay kooxaha kubadda cagta gobolada Togdheer iyo Maroodijeex 45 daqiiqo hore ciyaartaasi ayaa kooxda kubadda cagta gobolka Maroodijeex waxay dhalisay hal gool kadib markii weerar iyo weerar ay ku qaatay kooxda kubadda cagta gobolka Togdheer laakiin 45 daqiiqo kadib ayaa kooxda kubadda cagta gobolka Togdheer isbedel ay samaysay gashay oo hal gool ay keento sidaas ayaana ciyaartii ku soo gabagabooday taranka ciyaaraha Somaliland ayaa la filayaa dabadeed dambe ay sii socdaan kuwaas oo dhexmari doona kooxaha kubadda cagta gobolada Somaliland